Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Kuna soo dhawaada barnaamijka Wehelka STN oo isbuuciiba 2 jeer daadaha iyo kale ka daawataan Star Television Network. Barnaamijka Wehelka STN-na waxaa maanta oo Axad ah aad ku daawan doontaan xubno kala duwan iyo muuqaallo xiiso badan oo aan idiin soo xulnay. Xubinta ugu horeysa barnaamijkeena waxaan ku bilaabi doonaa xuska dhacdooyinka, waxaana idinkugu talagalnay inaan idinkugu soo gudbino daawadayaal qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa ee dalka iyo dibaddaba ka dhacay. Xubinta xigta waxaanu ugu talagalnay iwehesho oo aan daawadayaasheena ugu soo gudbino muuqaallo iyo sheekooyin ku saabsan wacyigelinta, aqoon kororsiga iyo weliba xigmadda. sidoo kale xubinta ugu dambeysana waxaan kusoo qaadanaa martisoor oo aan iyana maalintaas ku falanqeyno mawduuca aan isleenahay waa kii mudnaa in miiska la soo saaro. maanta mawduuca aan ka hadli doono waxa uu ku saabsanaan doonaa arrimaha bulshada, gaar ahaan nolosha dadka iyagu dhibaatooyinka ay haystaan, gaar ahaan kuwa loo yaqaano darbijiifka. waxaana marti noo ah qof ka mid ah dadka xuquuqdooda u dooda, aadna daryeelkooda ugu dadaala. balse xubinta martisoor dib ayaanu ugu soo gudbi doonaa. haatanse aanu ku horeyno xubinta ugu horeysa ee barnaamijkeena ee xuska dhacdooyinka, waxaana barnaamijka maanta si toosa halkan idinkaga daadihinaya anigoo ah Cabdishakuur Casoowe. Cabdishakuur Shakra, idinkuna waxaad daawadayaal nagala qaybgeli kartaan barnaamijka dhinaca khadadka taleefanada oo aad fikiradiina kaga dhiiban doontaan hadduu Rabbi idmo.